بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوداشنا قيمة بدن waxaad ku soo dhawaataan warka Hami FM TV. Qodobada aan maanta idin hayo waxaa kamid ah dagaal beeladi ka dhacay maanta qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Umar Filish oo ka hadlay maqaamka Muqdisho xilli uu ka qayb galay dibadbax maanta ka dhacay caasimadda dalka ee Muqdisho. Muxuu madaxweyne Farmaajo ka yiri doorashada Soomaaliya. Barnaamij la soo abaabulay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qodobada dalka ka baxsan waxaa ugu dooron General Khalifa Haftar oo taageero u diistay madaxweynaha dalka Masar Abdulfataax al-Siisi. qodobadaasi hadba waxay nagu soo kordha oo faasana kheyr goordhow u diyaar garooba. markale isma qalnaaqsan waa maalinimo Axad ah. taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 6 Juun sanadku waa 2020. waxaad ku soo dhawaataan qodobada idin dulmari oo intaasi ka faahfaahsan. فضل هديات صاحب نقول عصب جنرال كان سبسكرايب صار لاقي شير كومنت كمرنا halkani waa Hami FM TV. haddii aan ku bilaabo dagaal beeladi ayaa maanta waxay ka dhaceen qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan. Ibrahim Maxamed Xasan Jamuuni ayaa warkani soo koobaya. dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu maanta ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana la soo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dad ku sugan deegaanada lagu dagaalamay ayaa SBTV u sheegay in dagaalku uu ka socdo Ceyrdaye iyo Meere Jibaale oo ah laba deegaan oo isku dhow kuwaasi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. inta la xaqiijiyay laba qofood ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo wararkii ugu dambeeyay halkaasi naga soo gaaraya ay sheegayaan in weli uu soconayo dagaalka soo bilowday xalay saqdi dhexe. maleeshiyaadka diriraya ayaa maalmihii la soo dhaafay isku horfadhiyay halkaasi, iyadoo ay fashilmeen dadaalo lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dagaalka ka dhexeeya labada dhinac. gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya waxaa ku soo laablaabtay dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiyo hubeysan, iyada oo beelaha maanta dagaalamaya ay sanadii ugu dambeysayna dagaalo badan ku dhex maray deegaano badan oo ka tirsan isla gobolka Hiiraan, waxayna isku hayaan dhul daaqsimeed. wax walba ee ku soo kordhana wararka iyaga xiga ayaad ku daawo doontaan. aad buu mahadsan yahay wariyahayga Ibrahim Jamuuni. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda Muqdisho mudane Umar Filish ayaa waxa uu ka qayb galay barnaamij maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho. qodobkani waxaa soo koobaya wariyahayga Cabduqaadir Daawud. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Umar Maxamed Filish oo maanta ka qayb galaya dibadbax balaaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arinta taagan ee maqaamka Muqdisho. Umar Filish oo dibadbaxyaal taageerayay hadalkii shalay ee madaxweyne Farmaajo kula hadlay isaga oo saaran gaari cabdibilaa isgoyska kilomitir 4 ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in maqaamka Muqdisho uu ka hooseeyo maamulada kale ee ka jira dalka. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gobolka Banaadir uu ka miisaan weyn yahay matalaada 7 xubnood ee laga siiyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. gobolka Banaadir waxa uu u qalmaa matalaad ka miisaan iyo macno weyn tan la siiyay maamul goboleedyada dalka ka jira, ayuu yiri gudoomiye Umar Filish. ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay reer Muqdisho inay isdejiyaan isla markaana ay xuquuqdooda ku raadsadaan si nabdoon. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dood badan ay ka taagan tahay maqaamka caasimadda oo la isugu mari laayahay xilli ay fowda inagu soo hayso doorashada madaxweyne iyo midda baarlamaan oo dhacaysa dhamaadka sanadka 2020 ilaa iyo 2021. Cabduqaadir Daawud, raadiyo iyo telefishinka Hami, Beledweyne. aad buu mahadsan yahay wariyahayga Cabduqaadir Daawud. dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay doorashada Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya xilli siyaasiyiin badan ay shaki gelinayeen in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda lagu qabto. waxa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo in markasta tallaabo hore loo qaaday hayeeshee ay doonayaan inay qabtaan doorasho ka duwan kuwii ka dhici jiray Soomaaliya muddo 50 sano kadib. sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha in dadka Soomaaliyeed ay fursad u haystaan inay doortaan xildhibaanada matalaya iyo cid kasta oo ay doonayaan si loo gaaro midnimo iyo wadajir. waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo amurahaasi ka hadlaya. markasta tallaabo ayaan hore u qaadinay doorashadani marka inay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa way cadda inay muddadaasi in ay ummadda Soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashadan
xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo 50 sano ah kadib markii ugu horeysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka. waxaan shacabka Soomaaliyeed aan kula dardaarmaya inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dawladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay Soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay Soomaaliya leedahay oo ugu horeyso qabyaaladda, faqriga iyo argagixisnimada. geesta kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga Daljir ayaa waxa uu inta badan eedan dusha kaga tuuraa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isagoo sheegay inuu doonayo inaysan dalka ka dhicin doorasho qof iyo cod ah. sidoo kale hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isaguna waxa uu dhaliilo kala duwan dusha kaga tuuraa dowladda Soomaaliya isagoona sheegay in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay dalka dib u dhac badan ku keentay. banaanbax la soo abaabulay ayaa maanta waxa uu ka dhacay qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa goordhow ka bilowday banaanbax ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka Banaadir oo la soo abaabulay kuwaas oo taageero u muujinaya dowladda federaalka Soomaaliya. banaanbaxan uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu yahay mid lagu taageerayo hadalkii shalay uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ka sheegay kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda dalka kaas oo ahaa in gobolka Banaadir uu xubno ku yeesho aqalka sare Jamhuuriyadda Soomaaliya. qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho sida wadada Maka al-Mukarrama iyo wadada isgoyska Jubba ilaa taalada Darjinka Daason ay dadka ku banaanbaxayaan iyagoo ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin dowladdiida dooni mayno. ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa saakadii hore waxa ay xireen wadooyinka weyn ee magaalada Muqdisho iyaga oo u diiday inay maraan gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo dadka shacabka ay wataan. haddii aan markana eego qodobadii dalka ka baxsanaa Khalifa Haftar oo taageero weydiistay madaxweynaha dalka Masar. xoogaga dowladda Liibiya ay qaramada midoobay taabacsanta ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada xeebta Sirte ee ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka taabacsan General Khalifa Haftar balse ciidamadiisa ayaa sheegay inay dib u riixeen kuwa ka soo horjeeda inkasta oo General Khalifa Haftar taageero ka helaya Masar, Ruushka iyo Imaaraadka Carabta. haddana maalmihii dambe waxa ay ciidamada General Khalifa Haftar la kulmeen guuldarro isdaba joog ah. ciidamada dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay iyo kuwa militariga Turkiga ayaa galbeedka Liibiya ka saaray xoogaga General Khalifa Haftar oo haatan awoodiisa ay sii wiiqmayso. marsi horeysay General Khalifa Haftar ayaa ku baaqay xabajoojin iyo in la bilaabo wadaxaajood lagu xalinayo xaaladda ka aroorsan dalka Liibiya. waxaa hore fashil ugu dhamaaday wadahadalo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda Liibiya iyo General Khalifa Haftar ee ka taagan gudaha dalkaasi Liibiya. bartamihii sanadkii hore ayaa waxaa aad u xoogaystay awoodda General Khalifa Haftar isagoo gulufyo xoogan ka qaaday xarunta dowladda ee Tripoli iyo guud ahaanba koonfurta waddanka Liibiya. dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaare xoogan oo xitaa la xiray eelaboorka magaalada kadib markii gantaalo awood badan lagu garaacay magaalada. xitaa maleeshiyaadka taabacsan Haftar waxaa u suurto gashay inay dhowr kiiloomitir gudaha usoo galaan magaalada xarunta wax dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya. balse waxaa la sheegay in Haftar ay xaaladda ku cakiran tahay iyadoo boqolaal ka tirsan caloosha u shaqeystayaasha Ruushka ee ka garab dagaalamay ciidamadiisa ay isaga baxeen aaga dagaalka koonfurta Tripoli sida ay ku warantay wakaaladda wararka FBI ee ka soo xigtay xoogaga dowladda ee qaramada midoobay taageersan tahay. General Khalifa Haftar oo ka qaybaha siyaasadda Liibiya muddo ka badan 40 sano ayaa waxa uu noqday nin ay warbaahinta caalamka aad u hadalhayeen maalmihii la soo dhaafay. Khalifa Haftar waxa uu ku dhashay bariga magaalada Ajdabiya sanadii 1943. Haftar waxa uu ka mid ahaa koox saraakiil ah oo hogaaminayay duulaankii Korneel Cumar al-Qadaafi oo awoodda kaga qaaday boqor Idris bartamihii sanadii 1969. ciidamo ka amar qaatay isaga ayaa la wareegay maamulka saldhigga saliidda ugu weyn ee dalkaasi Liibiya iyadoo ujeedku uu ahaa in dalalka saaxiibka la ah ay u dhoofiyaan shidaalka oo dalkaasi qaniga ku yahay waxaana ay saldhigteen magaalada dhinaca bari ku taal ee loo yaqaano Tobruk. hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Cumar al-Qadaafi ayaa Haftar u dalacsiyay garaadada ciidamada ugu sareysa waxa uu taliye ka ahaa ciidamada Liibiya ee ka qayb qaatay dagaalkii dalkaasi Jad ee la galeen sanadii 1980.
daawadayaasha qiimiga badan oo guud ahaanba waa inaga intaa warkii Hami FM TV warka waxaa idin soo codsiinaya anigoo Yaasiin Looyal cidii uu isaga wixii dib kaga dalacan karaan baraheena bulshada ee ku suntan magaca Hami FM TV idinkuna aad ku mahadsantiin daawashada warkana war lacayna isma dhaafne amaana Allah.